السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين wanaagsan meel kasta aad joogtaan. insha Allah muuqaalkan waxaynu ku sharxi doonaa waxa loo yaqaano recurrent infections ama infectionka ama caabuqa soo laalaabta ama soo noqnoqda hadba saa u taqaanaan. haddaba maxaa keeni karaa qofka in caabuqa ama infectionka uu jirkiisa kusoo laalaabto ha noqoto caabuqyada kala duwan ee jirka qaybihiisa kala duwan ku dhaca haday noqon lahayd caabuqa ama infectionka ku dhaca kaadi mareenka, caabuqa ku dhaca sanka, dhegaha, feeraha iyo hawo mareenka, dhammaan caabuqyada kala duwan ee jirka qaybihiisa kala duwan ku dhici kara maxaa keeni kara qofka inay kusoo noqnoqdaan ama se ay kusoo laalaabtaan. haddaba waxa u kala qaadeynaa dhowr arrimood oo kala duwan. marka ugu horeysa qofka inuu infection iska daaweeyay infectionkiina uu kusoo noqday ama caabuqii uu kusoo noqday hadaa si kale u dhahno waxaa keeni karaa qodobka koowaad in qofkii markiisa horeba aan si fiican looga daaweyn infectionkii ama caabuqiiba oo markii koodii hore isku arkayayba in si fiican aan looga taxadirin oo si fiican loo hubsanin. tusaale ahaan oo kale qofkii markuu iska baarayay inaan baaritaan fiican loo sameyn daawada lasoo siiyeyna inaysan ahayn markaasi daawo aan markaasi tayo lahayn. daba waa muhiim marka ugu horeysa oo qofku isku arko infectionka ama caabuqa in daawo fiican oo waxtar leh ama tayadeeda ay sareyso la siiyo si uu xanuunkani mar labaad ugu soo laabanin. qodobka labaad ee keeni kara qofka inuu infectionka kusoo noqnoqdo ama caabuqa kusoo noqnoqdo waxaa keeni kara qofka markii dhakhtarka uu daawo usoo qoro daawadii muddadeediina uu dhameysto waa inuu qofku markaasi dhakhtarka uu ku laabtaa. hadduusan qofka dhakhtarka ku laaban dhibaatooyin badan baa ka dhalan kara oo kamid ah inuu infectionkii mar labaad kusoo noqdo jirka. muhiimada ay leedahay qofka markuu daawada dhameysto inuu ku laabto dhakhtarka waxa weeye qofka markuu dhakhtarka ku laabto waxaa loo sameynayaa baaritaankaasoo la ogaanayo inuu qofka infectionkii ama caabuqi jirkiisa uu ka baxay iyo kale. haddii uusan jirkiisii weli ka bixin oo weli uu ku jiro dhakhtarku wuxuu usoo qorayaa muddo kale inuu daawadii sii wado ama se daawadii buu ka bedelayaa oo daawo kale oo ka fiican ama se waxtarkeedu ay ka fiican tahay tii hore buu usoo qori doonaa. haddaba waa muhiim markii daawo lagu soo qoro oo dhakhtarka ku dhaho muddadaas kadib soo laabo waa inaad dhakhtarkii ku laabataa. qodobka kale ee keeni kara qofka inuu infectionka kusoo noqnoqdo ama se infectionka kusoo laabto waxaa keeni kara jeermiska infectionka keenay oo adkaysi u leh daawada. tusaale ahaan qofka infectionka laga daaweynayo iyo jeermiska infectionka keenayba daawadaas la siiyey waxaa dhici karta jeermiskaasi inuu ka adag yahayba daawada oo jeermiskii uu xoog badan yahay. sidaa daraadeed waa muhiim qofka markaasi in loo raadiyo daawo awood leh oo jeermiskaasi wax ka tari karta. qodobka ku xiga ee keeni kara qofka inuu infectionka kusoo laalaabto wuxuu noqon karaa qofka oo daawadii la qabsaday amase qofka oo daawadanba horey usoo qaatay. tusaale ahaan dadka qayb waxaa jira daawo markii la siiyo uu jirkooda uusan waxba ka tareynba ama jirkooda uusan wax isbedela kusoo kordhineyn. taasna waxaa u sababa qofka inuu daawadan horey usoo isticmaalay ama horey usoo qaatay. taasna waa dhibaatooyinka badanaa ka dhasha qofka inuu daawo iska qaato isagoo aanan baaritaan iyo wax dhakhtar aan u tegin. haddaba waa muhiim qofka inuusan daawo iska qaadan ilaa inuu isbaaro kadibna uu dhakhtar u tago oo la ogaado daawadan uu qaadanayo xanuunkeeda inuu qabo iyo in kale. qodobka ku xiga ee keeni karaa qofka inuu infectionka kusoo laalaabto waxa weeye cabirka daawada uu qaadanayo ama hadaa si kale u dhahno qiyaasta daawada uu qaadanayo oo qofka ku yar. yacni markii loo fiiriyo qofka xanuunka haya iyo qiyaasta daawada uu qaadanayo oo kala yar. haddii qiyaasta daawada uu qaadanayo ay yar tahay xanuunka hayana ay badan tahay waxaa muhiima qofka markaasi in loo badiyo qiyaasta daawada. haddii qiyaasta daawada uu qaadanayo ay ku yar tahay qofkii waxaa dhici kara muddo kadib haddana inuu infectionkii kusoo laabto amase infectionkii inuu kusoo noqdo. haddaba waa muhiim marka horeba in qofkaasi la fiiriyo xaaladiisa iyo infectionka markaasi haye heerka uu marayo si markaasi loo siiyo qiyaasta ku haboon. qodobka ku xiga ee keeni kara qofka inuu infectionka kusoo laalaabto jirkiisa waxa weeye qofka in kaligiis laga daaweeyay. tusaale ahaan midaani waxay khusaysaa dadka lamaanayaasha ee isqaba gaar ahaan infectionka la dhaho infectionka ku dhaca kaadi mareenka ee la dhaho urinary tract infection ama UTI. haddii laba qof oo isqabta qof kamida uu ku dhaco oo aan labadaba aan laga daaweyn uu mid kamida iska daaweeyo waxaa dhici kara qofkii inuu kusoo laabto. sidaa daraadeed
waxaa muhiim ah haddii caabuqa ama infectionka ku dhaca kaadi mareenka uu 2 qof oo isqaba midkooda ku dhaco, waxaa muhiim ah in qofka kale oo isna lamaanihiisaan inuu iska daaweeyo oo isna daawadii qaato si labadoodiiba waqti isku mid ah xanuunkii looga daaweeyo uu meeshii uga baxo inuu markaasi xanuunkii mar labaad soo laabto. haddii qof kamida laga daaweeyo mar walba xanuunkan labadooda mid unbuu kusoo laabanayaa, xanuunkana kama dhex baxaya. sidaa daraadeed waa muhiim infekshanada dadka lamaanayaasha isqaba ay kala qaadi karaan haddii qof kamida lagu arko in labadoodaba laga daaweeyo. qodobka ku xiga ee keeni kara qofka inuu infekshanka kusoo noqnoqdo waxaa keeni kara qofka hadduu yahay qof xaaladiisa caafimaad ay liidato amase qof qaba xanuunada difaaca jirka hoos u dhiga, iyo sidoo kale qofka inuu yahay qof la nool xanuunada qofka muddada badan haya amase xanuunada qofka cimrigiisa uu la noolaan karo, sida qofka haddii uu qabo kale xanuunka loo yaqaano sonkorta, dhiigkarka iyo sidoo kale xanuunka kansarka. dhammaan xanuunada qofka waqti badan uu la noolaan karo haddii uu qofka qabo amase haddii qofka xaaladiisa caafimaad ay liidato uu xanuuno kale uu qabo, waxaa dhici karta sidoo kale infekshanka jirkiisa inuu kusoo laalaabto mar walba. waana sababta ugu weyn ee dad badan ay ugu soo laalaabto infekshanada ku dhaca jirka qaybihiisa kala duwan. qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon karaa qofka inuu kusoo laalaabto infekshanka amase caabuqa inuu kusoo laabto jirkiisa. waxaa keeni kara qofka nadaafadiisa inay liidato amase qofka inuu sameeyo caadooyin caafimaadkiisa wax u dhimi kara. haddaba dhammaan qodobadaasi waa qodobo keeni karaa qofka inuu infekshanka jirkiisa inuu kusoo laalaabto amase caabuqa inuu jirkiisa kusoo laalaabto. haddaba waa muhiim inaad dhammaantood aad iska wada fiirisaan. qaalkii intaasaan kusoo gabagabeynayna. haddii aad waxun ka faa'iiday la socda asxaabta una sii sharkare, haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogteen laagta nagu dhiirigeli. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.